السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو عبد الله علي آذان عبد الله جول. طبعا وبحدي اليدويف أتشاستي سيداد لسعوتان وحان مددا ودني اسمها وبسيت كيني أنو وطلقلناي دادكا funded forex traders كا أما ganacsatada ka shaqeysata shirkadaha bixiyaan maalgelinta kaasoo aan ugu talagalnay inaan ku baasno jaalanjiyada sidoo kaleetana markii aan baasino kadib uu qofku u helo akoonkiisa caadiga ama reelka ahaa ee lacagtii loogu shubay in aan la korino sideen u la korinaynaa sideen jaalanjiga u baasinaynaa dabcan inta ka qaadno akoonkiisa annaga uguma trade grade doonno laakiin waxaan dhex keeni doonaa community weyn oo keliyana shaqadoodu tahay inay shirkadahaas ka shaqaystaan dabcan website-kan magaciisa waa funding elliotwave adjusted waxa uuna gaar u yahay in shaqadaas aan idiin soo sheegay keliya uu qaabilsanaado dabcan qof asaga trader ah oo ama maxaa la yiraahdaa akoonadiisa caadiga ama howlo kale iska haysto looguma talagelin sidoo kale meel signal lagu iibiyo oo kaliya qofku inuu signal usoo doonto meel ah ma ahan dabcan qofkii isdiiwaan gelinayo shuruudo ayuu mari doonaa maxaa la yiraahdaa haddii uu horay akoon u lahaa meel iska diiwaan geliya leedahay xogtiisa ayuu kusoo diri doonaa haddii uu qof cusub yahayna waxa uu haystaa chance fiican oo ka fiican qofkii hore akoon u lahaa taasoo ah in uu qofku heli doono caawinaad fiican oo in loo dooro program ama shirkad fiican oo jaalanjiyadoodu laga bixi karo tusaale waxa ugu badan hadda shirkadaha maxaa la yiraahdaa jaalanjiyadoodu ay dadku ku dhacaan waa waqtiga ku kaaban awgeed waqti yar 30 maalin ayaa lagu leeyahay ku baas 60 maalin ayaa ku xigta nidaam noocaas oo kale marka qof maxaa la yiraahdaa trader ahay awal akoomadiisa caadiga ahay soo gubi jiray ayaa 10% ama 5% la yiraahdaa qasaarin inta sidii qasaarada akoonka waa laga xiri doonaa 30 maalin waad haysataa miyaa ka gudbaya marka challenge-gaas waa ma yasamaha waa dariisan aan website ku furnay marka maxaa loogu talagalay in qofkaas akoomankii soo gubi jiray aan u diyaarino in akoon weyn uu maamulo sidoo kalena 5% ama ilaa 10% wax qasaaraha uusan gaarin taa cagsigeedana uu sameeyo faa'iido si uu u helo akoon la maalgeliyay kadibna u koriyo simple ujeedada leena waxay tahay qofka noocaas mentalkiisu ahaay maskaxdiisu noocaas ku bargaraansaneed in akoon 50% ilaa 100% la koriyo tusaale $100 ugu jirtay ama $1,000 wuxuu aaminsanaa inuu maalin ama hal bil uu ku kori karo oo ku laba jibaari karo qofka noocaas maskaxdaas ka dhaadhacsan dabcan waa uu qaldan yahay inta duu yimaadana ama maxaa la yiraahdaa shirkadaas u galna qaabkii uu kala u dhaqan oo isleeyahay asoo maalin gudaheed meeshii kaga baxaya soo maaha ama uu ku fil garoobaya lacagtina way ka qasaartay marka ay hob inaad la fahanteen ujeedada aan website-kan u furnay problemka jira oo dadka haysta ayaan waxaan u keenay xalkoodii aan sharaxaada website ku guda gala marka hadii aad la fahanteen ujeedada ugu weyn dabcan website-keena weyn waa taqaanaan waa uu jiraa kaas muxuu u gaar yahay oo kan ugu duwan yahay kaas cid waliba oo trader ayaa iska diiwaan geli karta qof maxaa la yiraahdaa shirkadahan maalgelinta ka shaqeeya ama qof caadi iskiis u trade gareysanayo cidii doon waa u sameeyeen sidoo kale to kaas wuxuu gaar u yahay wayfiski in qofkii si professional loogu baro sidoo kale to si practical ah ama live ah chartiski iyo la update gareynayo chartiski iyo noocyadooda kala duwan jihooyinka suuqa waxaas inuu professional ku noqdo halkaas waa cilmi doonasho intana dabcan cilmi waa yaala laakiin wuxuu u gaar yahay nidaamkan kale marka in isku qasal lama rabo qofka inuu kala fahansan yahay la rabo meesha uu ka doonanayo xalkiisa dhibaatada haysatay xalkeeda hadii aqoon u baahan tahay halkaas waad aadaysaa qaybtan hadii aad u baahan tahay waxaad imaanaysaa meeshan si lagaaga caawiyo
programyada marka waa labadan program mid saddexaad ma jiro qofka cusub wuxuu noqon doonaa new evaluation waa qof ku cusub challenge-ga weli wax shirkada ma haysto wax dhan bilow haddii kow halkan ayuu iman marka inta imaadid waxaa kugu soo bixi doonaa dabcan qoraalkan inta ka muuqda wax kale ma ahan anaan summary ku sameynaya qofkii cusub waxa uu heli doonaa qiimo dhimis boqolkiiba 40 ah dabcan waa bille bishii waa $9 keliya maxaa ku helaysaa marka sequence report maxaan ula jeednaa sequence report dabcan way garanayaan ardada wayfiska baratay oo joogta maxaa la yiraahdaa webka weyn waxaan ula jeednaa in lagu siiyo jihooyin cayiman lacaga kala duwan tusaale euro USD 1 hourkeeda targetkeeda waa meel hebel 4 hourka targetkiisu waa bearish waana meel hebel awzi sidaas la mid ah waa bullish targetkiisi daily-ga waa meel hebel marka maskaxdaada waxaad ogtahay marka adiga lacag bullish lagu sheegay meesha ay gaari doonto inaadan hadhow bearish u gali doonin marka wax badan bay ka caawinaysaa lacago aad si qaldan u gali lahayd ayaa laga cadidaya ama ayaa lagu sheegaya kadibna dhinaca saxda ay u socdaan uga faa'iideysanay symbol maxaa kale oo ku helaysaa intaas complete borrow course waa course dhameystiran maxaa la yiraahdaa oo loogu talagalay shirkadahan maalgelinta wax kasta ku saabsan inaad ku baratid haddii ahayd risk management-tigi iyo haddii ahayd waxyaabihii kaleeto dhan aqoonta la xiriiray dhankaas maxaa kale oo sidoo kale ku heli doontaa weekly market overview video oo suuqa lagu eegayo weegan beeriska diyaarsan fursadaha kuwa macquul ka yihiin waxaas dhan qodobka xiga reliable signalo la isku halleyn karo sidoo kaleeto qaybtan markii aad joogtid maadaama qofkii cusub ay tahay waxa ku qasbanaa doontaa inaad isticmaashid linki aan anaga ku sii doono laakiin choice-ka aad iskale shirkadda iskaga diiwaan gelinaysid ee lacagta maalgelinta ku sii doonto ama challenge-gooda aad ka qayb qaadan doontid shirkadahu way badan yihiin dabcan waa kuwan waxaa ka mid ah my forex fund trading plus 5% FTMO iyo kuwa kale dabcan kuwa badan gadaal waa loogu soo diri doonaa laakiin hadda inta ugu badan Soomaaliya isticmaasho waa kuwan sidoo kaleeto shirkadaha qaar markii aad ayaga naftirkooda iska diiwaan gelinaysid discount ayaad ku heli doontaa linkayadeena tusaale fund trading plus oo kale haddii aad rabtid inaad iska diiwaan gelisid linkigeena aad qaadanaysid boqolkiiba 10 discount ah ayay ku sii doonaan koodkan ayaan isticmaali doontaa oo laga soo gaabiyay funding Elliott wave adjust 10% 10 saas oo u dhigma macnaha kuwa kale oo discount leh dabcan gadaal waan ka soo geli doonaa laakiin hadda midaan ayaa diyaar ah linkigaas marka maxaad ku heshay discount dhankayga ah oo maxaa la yiraahdaa oo $9 laga qaadi doonaa meesha qofka aan cusbeen 15 laga qaadayo sidoo kale shirkadihii kale aad iskaga diiwaan gelinaysay ayagana discount ayaad ku heli doontaa markii aad shirkadahan dooranaysidna la talin oo free ayaad heli doontaa oo kuwa ugu fiican lagu sheegi doonaa kuwa waqti dhumiska oo horey aan u soo sheegay 30 maalin oo kale iyo waxyaabahaas oo kale waqti dhumiska lacagta ka qasaaranayaan waa laga ilaalin doonaa kuwa ay expire lahayn sida fund trading plus oo kale waqti ka dhacaya ma lahan ilaa aad targetka ay gaartid ama aad targetka khasaara aad gaartid kaliya koonku kaaga xirmaya 5% oo kale hal sanaad haysataa kuwa noocaas oo kale kuwa ugu fiican kula tali doonaa insha Allah haddii aan hore u socdo marka qodobka xiga waa joint evaluation qaybtan waxaa loogu talagalay qofka shirkad funding ah hore iskaga soo diiwaan galiyay ama akoon ugu furan yahay hore waxaan ula jeedaa qof akoon ka qarxay oo haddana rabo ma ahan akoonka duu ka gubtay mar labaad aad rabtay akoonka inaad furatid new evaluation aad dooran doontaa laakiin qof akoonka hadda furtay waxaan ka hadlaynaa oo horey ugu furnaay oo horey u sii socda rabo challenge-ga in laga baasiyo rabo qaybtan marka adiga wax discount ma lihid directly waxa laga qaadi doonaa waa qaybtan joint-ka haddii aan ku dhufto waxa laga qaadi doonaa $15
laakiin waxyaabihii kaleeto oo dhan oo helaya qofkii cusbaa waad helaysaa ha ka walwalin simple hadii qofkan kaliya waxaa kula duwan tahay inaad kala horeyseen adii hore inaad u haysatid kanna in uu maxaa la yidhahdaa hadda cusub yahay uuna isticmaalo linkiyadeena qof kastoo linkiyadeena isticmaalno qiimahaas ayuu maxaa la yidhahdaa ku heli doonaa fiiro gaar ah marka meeshaan haddii aad doorato joint evaluation waxaa lagaa rabaa inaad soo caddayso profile account-kaagaa soo diri doontaa oo shirkadda iska diiwaangelisay maadaama dhexda aniga account aan leeyahay shirkadda hebel account-ka leeyahay sababta sidaas loo dhahayana wax kale maahan waxaa la diidayaa cid kasta inay meesha iska imaado keliya hore sidaan u sheegnay waxaa loo ogol yahay dadka ku jira shirkadaha maalgelinta ah dada signal keliya iska soo doonanayo meeshan imaanayo oo waxba lahayn maxaa la yidhahdaa account funding ah dadkaasaan u diidaynaa marka dadka ay shaqada ka go-an tahay keliya ugu talagalnay website-kan qofkii rabo signal iyo inuu rabo aqoontiisa inuu sii kordhiyo website-ki kale u diyaar ah alright intaas waa labada feature ee ugu weyn oo website-kan leeyahay waxyaabo kale oo free oo sida trading resources oo kale trading super tools oo kale waxyaabahan waa free waad isticmaali kartaa sida economic calendarki oo newsadii wararka soo baxay aad kala soconaysid compound calculatorki waxyaabahanan tartiibtaada profitkaaga waa lagu xisaabayaa si automatic ah drawdownkaaga ama khasaaraha waa lagu xisaabayaa Fibonacci numberski pivot pointski waxaas dhan waad helaysaa sidoo kale intan waxaa ku jira free articles oo aad maxaa la yidhahdaa kala soco kartid waxyaabaha cusub ee update-ka markaas jira aan soo geli doono intaas waxaa dheer marka uu website-ku uu leeyahay waxa uu leeyahay sida website-keena weynka oo kale earning points qofkii diiwaan geliya dhibco ayuu helayaa website-ka booqashada soo booqasho dhibcaad ku helaysaa haddaad asxaabtaada la wadaagtay dhibcaad ku helaysaa waxyaabihii kale oo dhan aan uga soo sheekeynay videogii pointeska ah waa uu leeyahay halkan kore ayaan soo saari doonaa videogaas ayaad ka daawan doontaa insha allah maxaa xiga marka intaas oo dhan haddaad ila fahanteen waxaa xiga haddii aad ku baasid challenge-gii oo sidii la rabay nidaamiskii ruleski oo dhan aad raacday oo aqoonti aad ku barnay sideedii aad u dabaqday waad ku baastay markii aad baastid abaalmarin ayaad dhankeena ga heli doontaa maxay tahay in ugu yaraan 3 ilaa 6 month aad free inoola sii joogtid meesha aad lacag subscription bixi lahayd si free ah inoola joogaysaa maadaama nin dadaalay oo challenge kusoo baasa aad tahay waa dhiirigelin si loo dadaalo qodobka xiga haddii aad u baahan tahay website-ka kala weyn aqoonta ku jirta iyo maxaa la yiraahdaa featureska kale ayaad kala dooranaysaa midka aad u baahan tahay ayaa lagu fasixi doonaa qodobka ugu dambeeya marka qodobkan waa qodob aad u muhiim ah wuxuu ku saabsan yahay qof waliba private uma aha dadka funding-ka oo keliya ama dadka shirkadaha maalgelinta ku jiro qof waliba oo leh website ama page Facebook ani social media wuxuu doona ha noqdo ama group ama meel iskugu imaadaan bulsho traders ah oo uu xogtiisu ku gaarsiin karo sidoo kale haddii aad leedahay saaxiibo aad isla trade gareysaan kaliya waxaad ugu baaqaysaa maxaa la yiraahdaa waxaad u diri doontaa link referral aan ku sii doono aad u share gareynaysaa oo affiliate ah hadhow qofkaas markuu isdiiwaan geliyo adiga waxaad ku lahaa doontaa 25% oo commission ah tusaale qofkan waa qof cusub waxa uu bixiyay $9 adiga commission 20% aad leedahay soo maaha $9 $2 kamid adiga commission ku ahaa doontaa annaga 7 kaliya na soo gaari doonto labadaas adaa lagu sii doonaa markasta oo lacagtaada commission-ka $20 ku gaartana si fudud ayaan kugu soo diri doonaa muhiimadu waa in 20 wixii ka badana kaliya ay ku gaarto marka haddaad team tihiin sidoo kale qofba qofku ku xigo ha u share gareeyo simple dhammaantiin marka waxaad wada heli doontaa commissionadiinni marka waa jaanis aad u fiican oo cid walba ka faa'iideysan karta haddaad maxaa tahay social media influencer kaba fiican oo website iyo waxaas aad leedahay linkiga ayaan ku sii doonaa affiliate-ka ayaad website-kaaga dhex dhigi doontaa meelaha ku share gareyn doontaa markasta uu qof yimaado website-keena uu soo booqdo oo wax u iibsado adiga commission-kaaga xaggaas ka heli doontaa si fudud ayaad lacag ku shaqaysan doontaa insha allah all right
طبعا overview guud ee website-ka Janagaliyaal waa intaas. Macna video inuu dheeraado ma doonayo. Wixii faahfaahin dheeraad ah qaybta chatting-ka ama email-keena caadiga ah ayaad inagala soo xiriiri kartaa insha Allah. Clip-kan yar intaas ayaan kusoo koobayaa oo ahaa sharaxaadda ama hordhaca guud ee website-ka. Waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiin guul insha Allah. dib dambana aysan u dhicin challenge ayaa lagu fail garoobay ama qof saaxiibka challenge ku fail garoobay ama adag ku fail garoobay waxaas dhan inay tirtirmaan sababtoo ah halkii ayaa la helay. Waad in salaamayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.